السلام عليكم guulaystayaasha iyo akhristayaasha maxaa ka dhaxeeya su'aashan ayaa aynu si faahfaahsan uga jawaabi doonaa ka faa'iidays wacan haddii aynu helno astaamo ay wadaagaan akhristayaasha runta ah iyo guulaystayaasha dhabta ahi waxaynu ku doodi karnaa in xiriirka akhriska iyo guushu yahay mid jiro oo mudnaantiisa leh waxyaabaha ay wadaagaan akhristayaasha iyo guulaystayaasha waxa ka mid ah kow diiradoodu ma lexleexato dadka guulaysta inta badan waxay xoogga saaraan hawl gaar ah muddo cayiman waa ay ka soo dhalaalaan ilaa ay dhameeyaan ama libaqsadaan oo qabyada waa ay necab yihiin laba yoolal ayay dhigtaan iyagoo diiradda adkeynaya ayaa haddana akhristayaashu ay dejistaan hadafyo markasta oo ay wax akhris u fadhiistaan waxa aynu ka hadlaynaa akhristaha gaasabaxay ee wanaagsan inta buug ee uu akhrinayo inta buug ee uu fadhigi kasta akhrinayo iyo faahfaahinta la midka ah waa ay u qoran yihiin sidan oo kale ayaa lagu yaqaan guulaystayaashana saddex waqtiga waa ay ka faa'iidaystaan dadka akhristayaasha ah waqtigu waa u muhiim ama waa inuu muhiim u noqdo ma jiro waqti firaaqo ah oo laga helo qaamuuska qofka akhristaha ah afar xagal aragoodu waa uu qaabaysan yahay qofka akhristaha ahi wax uun ma akhriyo ee dhinacyo badan ayuu wax ka eegaa xog keli ah kuma kaaftoomo xagasha uu wax ka eegaya ma aha mid qura oo isku koobo sidaas oo kale ayaa xagasha qoraaga uu akhrinaya u samaysta oo weliba ka faa'iidaysta isagoo oo garfayn samaynaya guulaystayaashuba waa sidan oo kale meel keli ah inta uu wax ka eego isma maqiiqo ee wejiyada arrinta ku hor taala oo idin ama ugu badnaan ayuu dheehdaa markan ayuu go'aan gaadhaa dhaqaajiyaana shan waa laga dheehan karaa qofka akhristaha ah waxa laga dheehan karaa waxa uu akhristay ee uu weliba ku raadoobay noloshiisuba waa ay qaabaysan tahay qofkii akhristaha ahaa marka uu xaglihii wax laga eegayay uu badsaday waxay isku dayayaa inuu ummaddan uga faa'iideeyo lix waa hadal yaqaan iyo qorid yaqaan khudbeeyayaasha dunida ugu caansan waxay ahaayeen dad akhrisku saameeyey oo noloshooda ay ka muuqato qofka qoraaga ah ee guulaystay ama khudbeeyayaasha ah ee guulaystay waa qofka uu ka akhriska sarreeyo caqliyaddii dunida soo maray ee iyaga ka horreeyey ayay akhristayaasha wanaagsan ka faa'iidaystaan markaas ayaa ay sameeyeen xirfadoodii qoraal iyo toodii hadalba toddoba xusuustoodu waa ay sarraysaa akhristuhu waa qofka qura ee yaqaan awoodda maskaxdu ay leedahay waxaan uu akhrinayaa inay maskax la mid ah ka soo baxda ayuu yaqiinsanayaa kadibna waxa uu isku dayayaa inuu tiisa ka shaqaysiiyo dadka waxa akhriyaa waxa ay u buriyaan aragtidii Homer Simpson ee ahayd wixii cusub ee qofka ku soo kordhaa oo meesha ka saaro wixii hore ee maskaxdiisa hore ugu jiray iyaga oo aan luminayn waxyaabihii ay hore u yahayeen ayay haddana wax cusub bartaan akhriskaagu hadiiba uu bato aqoontaaduna badatay aqoontaadu haddii ay badatana muhiimadda aad leedahay waa badatay sideed caajiska waa ay ka dheer yihiin akhristayaasha wanaagsan waxay maskaxda u arkaan inay tahay muruq ay tahay inuu ka shaqaysiiyo sida jimicsiga jiimku oo muruqyada gacmaha qofka uga dhigo kuwa geejisan ayaa akhriskuna maskaxda uga dhiga mid dhisan oo diyaar u ah inay aqoon dheeraad ah qaado